taabid cabdi maxamed waxa xilka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho loo magacaabay 6 bishii abriil waxaana uu la wareegay 15 bishaasi talaabadii koowaad ee uu qaaday taabid cabdi maxamed waxa ugu horeeyay dib u habeynta shaqaalaha gobolka banaadir iyo dawladda hoose ee xamar kuwaasi oo la saxay xuquuqaadkii ay ku lahaayeen wixii xilligaasi ka dambeeyay oo ay heleen si joogto ah waxaan rabaa inaan idin ballan qaado waxaad tihiin shaqaalihii dawladda hoose labada shay uu qofku u baahan yahay waa in la xurmeeyaa iyo xaqiisa inuu helaa xurmadii aan mudneedeenna waa helaysiin shaqada ay haysiin xaqa aan laheediinna waa helaysiin laakiin waxaa la rabaa dawladda xaqa ku laheedeen waa ka soo shaqaynaynaa ballan waa helaysiin idinka xaqa laydinku lahaana waa laydinka rabaa waxaa dib u habeen ballaaran lagu sameeyay nidaamka maamulka maaliyadeed ee gobolka banaadir barnaamijka horumarinta dhaqaalaha dadweynaha dawladda hoose ee xamar oo ah mid casri ah muddo 27 sano kadib kaasi oo sidoo kale qayb ka ahaayeen isla xisaabtan iyo ciribtirka musuqmaasuqa waa markii ugu horeysay aan 19 wixii ka dambeeyay in gobolka banaadir uu yeesho miisaaniyad muuqata oo electronic ah oo daah furan marka ujeedku ugu weyn waxa ay tahay in marka ugu horeyso waajibaadka in saaran oo ah waxa la soo qaaday dawladda hoose iyo gobolka banaadir ba ay soo gaaraan canshuur ha noqoto ama adeeg kale ay qabato ha noqoto dakhli kasta oo soo galo gobolka banaadir inuu cad yahay la og yahay waxna soo galo lana og yahay waxna naga baxo iyo meesha ay ku baxaan ayadoo laakiin daah furan oo xalaal ah oo qof walba arkayso waxaa xigay barnaamijka horumarinta darisaynta amniga caasimadda gobolka banaadir oo loo arkayay in uu yahay mid ka mid ah tiirarka koowaad ee u baahnaa wax ka qabashada dhabta ah ee gobolka banaadir iyadoo la isku xiray hay'adaha amniga loona abuuray wada shaqayn toos ah oo ay la leeyihiin shacabka muqdishaawiyiinta ah gudoomiye taabid ayaa muddadii uu joogay gobolka banaadir waxa uu xoogga saaray sidii gobolka banaadir iyo bulshada ku nool ay u heli lahaayeen matalaad siyaasadeed si la mid ah kuwa dawlad goboleedyada waxaana uu taabid cabdi maxamed ka qayb galay shirar heer qaran ah oo looga hadlayo mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed maamulka gobolka banaadir ayaa u arkay inay muhiim tahay soo nooleynta kalsoonida dadweynaha degan gobolka banaadir si loogu guuleysto howlqabadkii hor yaallay maamulka gobolka banaadir waxaana taasi ay ku suurtagashay muddo aad u kooban gudahood degmooyinka magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxaa laga bilaabay markii ugu horeysay ololaha aragti wadaagga muqdishaawiyiinta ee higsiga caasimadda oo la dhammaystiray dib u soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha caasimadda muhiimadaha koowaad ayay safka hore uga jirtay iyadoo la hirgeliyay dhismayaasha wadooyin laami ah oo isu furay ganacsiga iyo horumarka amniga gobolka banaadir isu keenida bulshada degan gobolka banaadir iyo xoojinta kalsoonida dadweynaha waxay qayb weyn ka ahayd tartankii kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir kaasi oo la soo gabagabay 8 bishii Sebtembar ee sanadkii 2017 iyadoo ciyaarihii ugu horeeyay la qabtay xilli habeen ah oo muddo 30 sano kadib waxaana ka mid ahaa astaamihii muujinayay horumarka dhinaca amni iyo dib u dhiska kaabayaasha caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kale waxa uu maamulku ku guuleystay martigelinta tartankii xiisaha badnaa ee kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka oo Muqdisho lagu qabtay kaasi oo ka xiisa badnaa sanadihii hore
gudoomiye taabid cabdi maxamed ayaa maamulkiisa door lixaad waxa uu ka siiyey dumarka si loola dagaalamo musuqmaasuqa loona ogaado awoodda iyo waxqabadka dumarka Soomaaliyeed. gudoomiye taabid cabdi maxamed ayaa maamulkiisa waxa uu hirgeliyay muddadii uu joogay adeeg casri ah oo wax looga qabanayo dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dadweynaha gobolka Banaadir u soo aada adeegyada uu bixiyo maamulka maaliyadda la xiriira kaasi oo wax weyn ka bedelay adeegyadii gobolka uu bixinayay. gudoomiye taabid cabdi maxamed ayaa xoogga saaray sidii loo dhiirigelin lahaa dhalinyarada gobolka Banaadir iyadoo oo 3,000 oo dhalinyaro ah loo sameeyay barnaamij shaqo abuur ah oo si daahfuran ay ugu tartamayeen dhalinyaradii ka faa'iideystay ugu dambeyntii. arrimaha waxbarashada ayaa waxa ay ka mid tahay higsiga guuleystayaasha, sidaas darteed waxa maamulka uu xoogga saaray sidii loo hirgelin lahaa waxbarasho lacag la'aan ah si loo soo saaro jiil aqoon-yahana oo hanta mustaqbalka dalkooda. xarumaha waxbarasho ee la hirgeliyay ayaa waxaa ka mid ah dugsiga hoose dhexe iyo sare ee 15 May muddo 27 sano kadib. sidoo kale gudoomiye taabid ayaa dhagax dhigay iskuulkii taariikhiga ahaa ee Xamarweyne oo hadda loogu magac daray Halgamaa Dheere Xaaji Dheere. toddobiyo tobanka degmo ee gobolka Banaadir ayaa laga furay ololaha bilaha ah ee maalinka nadaafadda qaranka kaasi oo isbedel muuqda ka hirgeliyay bilicda caasimadda Muqdisho. maamulkii uu hogaaminayay gudoomiye taabid cabdi maxamed ayaa saxiixay maalgelinta qorshaha lagu dhisayo xarunta gurmadka degdega ah ee debdemiska gobolka Banaadir oo laga hirgelin rabo qaybaha degmooyinka gobolka sida bari, bartamaha, galbeed iyo waliyo cadde. gudoomiye taabid cabdi maxamed ayaa dib u furay wadada 1 Julaay ee shaqaalaha loo yaqaano oo ka mid ah wadooyinka halbowlaha u ah socodka gaadiidka dadweynaha oo in muddo ah u xirneed sabab amni darteed. waxa uu sidoo kale maamulka muddadii uu joogay ku guuleysay dib u dayactirka taalooyinka taariikhiga ah sida SYL, Dhagaxtuur iyo Axmed Gurey. isboolleeryadii magaalada saas u shidan yihiin laamiga waana loo dhisay waxaan ku jirnaa nabad barwaaqo bashbash dadka dalka jooga iyo dadka Yurub joogaba markay arkaan saacaddan oo Muqdisho laga shaqeynayo waxaan u maleynayaa in ay qiire ee u dhiman doonaan. waxaan ku faraxsanahay saacaddaas aan dalkayga oo bajaaj aan ku dhaxsito marka nalalkani waxay lagu soo kordhinayaan waa bilic waa iftiin waxay ku kala saaraya habeen iyo maalin oo kale. waad ogtihiin iftiinku wuxuu ka qayb qaataa waxyaalo badan oo ugu horeeya amniga, ganacsiga iyo socodka ee bulshada. ruuxaantiina waxaan hadda soo gabagabeynay fayskii koowaad waxaan noo harsan qaybo kale oo badan oo magaalada wadooyinka halbowlayaasha ah magaalada dhan inaanu dayactir ku sameeyno sidaan oo kale la mid ah. samafale taabid cabdi maxamed oo aad uga danqanayay xasuuqii lagula kacay shacabkii uu matalayay 14 bishii Oktoobar ayaa dhabarka waxa uu ritay sidii loogu gurman lahaa dadkii sida xaqdarrada ah loo laayay inkastoo dad aad u badan ay ku dhinteen dhacdadaasi foosha xumeyd. gudoomiye taabid cabdi maxamed ayaa shacabka caasimadda oo ka caraysan xasuuqii Soobe waxa uu la qaybsaday dareenkooda ku aadan dhibaatadii gaartay iyagoo socod luga ku soo maray wadada dheer ee Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho kuna tagay isgoyska
mashaqadu ay ka dhacday ee Soobe taasi oo wax weyn ku soo kordhisay kalsoonida dadweynaha iyo hoggaanka maamulka gobolka Banaadir. mudane Taabid Cabdi Maxamed oo ka jawaabaya dhibka iyo xanuunka la soo gudboonaaday muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa caafimaad dibadda waxa uu qaaday dhibanayaal ay ku jiraan caruur yaryar. dadkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa Faa'iise Sheekh Maxamed oo dhaawac xanuun badani looga geystay xubinta taranka. warina waxa ay ku maqan tahay caafimaadkii loo qaaday ee dalka Turkiga. nasiib darro waxaa jiray caruur yaryar oo uu ku howlanaa Taabid Cabdi Maxamed sidii loogu raadin lahaa caafimaad dibadda hase yeeshee waqtiga uu diiday. waa waajib qof kasta saaran qofka danyarta ah in la garab istaago. nabaddu cadaaladda iyo horumarka wuxuu ku yimaadaa kan mudan ee danyarta ah marka la garab istaago. xilku waa meerto niyad wanaagga iyo naxariista meerta maaha. waana sii wadi doonaa insha Allah ta'ala.